samafale wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo safar ku maraya gobolada galbeedka Somaliland gaar ahaan gobolada Gabiley iyo Awdal ayaa warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgala gobolka cagaaran ee Gabiley iyo waliba qaar ka mid ah dhalinyarada Gabiley waxay ku soo dhaweeyeen Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon magaalada Gabiley ka hor intii aanu Cabdimaalik soo gaadhin gudaha magaalada ayaa warbaahinta Gabiley iyo dhalinyaradani waxay kaga hortageen bada kantaroolka dhinaca bari ee magaalada Gabiley laga soo galo intaas kadibna waxay Cabdimaalik warbaahintu kulan kula qaadatay hotel Galoley ee magaalada Gabiley ugu horeynba waa kuwan qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgala Gabiley oo samafale wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ku soo dhaweeyay gobolka cagaaran ee Gabiley madashan aynu ku soo dhaweyn doono samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo maanta safar ku socday Boorama aan anagu kala kulano ku nidhi waxaan ku leeyahay horta Gabiley salaantii soo dhaweynta laga midna in badanna anagu aanu suganay inuu noo yimaado in badanna aanu hadlanay iyaga shacabka Somaliland iyo cid kasta Cabdimaalik waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta gobolka Gabiley waxaan leenahay gobolka Gabiley waa gobolkaagii waxaan ku leenahay ku soo dhawo gobolka Gabiley annagoo warbaahintii oo dhan oo maanta mid ka maqnayn waxaanu ku leenahay ku soo dhawow gobolka Gabiley waanu ku soo dhaweynaa gacmo furan waxaanu u sheegnaa inaan ahaan doonin maalintii ugu horeysay ee aanu halsan ku soo dhaweyn mar walba aanu diyaar u nahay inaanu ku soo dhaweyno warbaahintu iyada isku qabiila iyada isku ah maxaan ku raada qayb wax kasta oo soo gaarayna aad baan uga xunnahay wixii aanu dhankayaga mar walbana aanu kala qaban karno amba hawlaha qaranka amba hamiga aynu wada jeedno diyaar ayaanu ku nahay ku soo dhawow ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba gobolka Gabiley awalan markasta ilaahay baa mahadnaq oo dhan u sugnaaday Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo maanta gobolkii cagaarnaa ee Gabiley nagula sugan waxaan leenahay ka warbaahin ahaan soo dhawow ku soo dhawow Cabdimaalik maanta runtii farxad darteed ma bahadli karo oo aniga maanta waxay noo tahay maalinkii uu xorriyadiisii dib u helay Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon aniga gaar ahaan waxay ii tahay farxad gaara Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon muddo 10 sano ku dhow ayaanu bahwadaagahayn markii ugu horeysay waxa uu ahaa agaasimahaygii telefishinkii Somali News aad iyo aad baan ku leenahay Cabdimaalik Somsat ku soo dhawow Cabdimaalik gobolkii cagaarnaa ee Gabiley haweenkii hooyooyinkii cuqaashi dhalinyaradii laguma kala hadhin inta ayaan ka badan baa markasta diyaar ayaan ku leenahay sidoo kale Cabdimaalik waxaanu maanta uga abaal celinaynaa walaalkeen xidhan oo isagu ka hadlay horena uga hadlay isla markaasina uu ahaa dadkii ugu horeeyay warbaahinta Somaliland gobolada ee ku sugan gobolada kala duwan ee Somaliland ninkii ugu horeeyay ee ku dhiirada isagu gobolka Gabiley soo gaara kana xumaada lala wadaaga qoyska iyo hooyada dareenka murugada leh iyo maalinkaasi Cabdimaalik mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan kaaga mahadnaqnaa warbaahintu waa seef laba af leh runtii road model ayuu noo yahay Cabdimaalik waana modelka lagu dayan karo waxaanu wada ognahay inta miskiin ee dayacan ee uu maanta madaxweyne wasiir caaqil aanu waxba u qaban balse codkiisa isagoo aan hanti siinin uu codkiisa wuxuu ku qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtiina waxaan u baahanahay in aanu ku dayano anigoo haddaba ku hadlaya afkii warbaahinta gobolka cagaaran ee Gabiley Cabdimaalik mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ku soo dhawow gobolkii cagaarnaa ee Gabiley iyo anagoo bahdii warbaahinta aba waxaan si wada jira gobolka Gabiley ugu soo dhaweynaa Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon waa suxufi ahna samafale in badan u soo shaqeeyay dalkani sidoo kale waanu la dareensanay intii uu xidhnaa Cabdimaalik Muuse Coldoon intii karaanka iyagana awoodeeda waanu qabanay waanu jeclayn maanta intan in ka badan inaanu soo dhaweyno Cabdimaalik laakiinse waqtigoona u koobnaa waxaan ku codsanaa socdaalka dambe oo nagu soo noqdo inuu Gabiley noogu hakan doono kala duwan odayaasha dumarka reer Gabiley iyo siyaasiyiinta la socda Cabdimaalik waxa leenahay gobolkii cagaarnaa ee Gabiley gobolkii ku soo dhawow qaban furban ku soo dhaweynaa maanta waqti kooban baa kulay waqti ku iska kooban yahay waxa jeclayn intan iyo in ka badan ba inaa Cabdimaalik oo nala qaadato magaalada Gabiley nala joogto aan kugu soo dhaweyno intaas kadibna qaar ka mid ah dhalinyarada Gabiley ee iyagu inta badan ka shaqeeya
samafalka iyo u gargaaridda dadka jilicda san leh iyo sidoo kale qaar ka mid a qoyska uu ka soo jeedo maxbuuska ku xidhan Jabuuti oo iyaguna Gabiley ku soo dhaweeyay Cabdimaalik ayaa waxay yiraahdeen waxa ugu wanaagsan ee lagu jeclaado waxa weeye shayga la yiraahdo tacaawunka waxaan leeyahay Cabdimaalik taad ugu wanaagsan ee ummaddu kugu jeceshahay ee magaranaysa qulubteeda baad ku hanatay waxa weeyaan dadka jilicda sanad hoosta u eegtay waana tii bulshada oo dhan ay laga waajibaad inagu haydayna wada saarnayd laakiin waad garatay dadaalka halka ka sii wad waxaanu jeclayn maanta inaanu gobolka Gabiley si balaadho kugu soo dhaweeyno laakiin soo waanid ku habsaamay waxaanu aad iyo aad maanta anagu halka taagano afkiga dhalinyarada gobolka Gabiley ku hadlaya inaad mar anaga si cad noogu timaado Gabiley ahaan oonadna dhaafaynin anaguna idinla joogayso waxaanu jecelnahay inaanu si fiican oo magaranaysa Gabiley aanu kala hadhin aanu ku soo dhaweeyno anagu waxaanu matalaynaa isla markaana samafale runtii waxaan horta anigu ku bartay samafalka oo uu ku soo caan baxay haday ta bini'aadanka tahay haday ta xayawaanka tahayba runtii aad bay arrinkaasi horta waqti dheer intan aan isku baran arrinka waalo waqti ka horeeyay waxaan isku baranay markaasi hawlaha samafalka ee uu ku jiray ahaa dad xanuunsanaya dad dulman oo xabsiga ku xidhan xayawaan oo kale isna dameerkii uu burco isna markaa uu ku daweeyay oo dhakhtarka geeyay runtii wax badan baa abaala ayaan ugu haynaa ilaahay agtiisana abaal badan buu kaga heli doonaa insha Allah Cabdimaalik waxaan leenahay ku soo dhawo gobolka Gabiley waxaan la qabnaa bahda saxaafadda iyo dhalinyarta kale ee gobolka Gabiley iyo hawlaha soo dhaweynta qiimaha badan ee ay ku sameeyeen runtii kadis bay nagu warahayd maadaama aad ku socotay Boorama talagalkaygu markaasi si qarba ayuu nagu ahaa aad baan ugu xunahay mar gaar ah iman doonta insha Allah si fiican kugu soo dhaweyn doonaa gobolka aad baad ugu maasantahay jaskuna waxa ugu wanaagsan ee lagu jeclaado waxa weeye shayga la yiraahdo tacaawunka waxaan leeyahay Cabdimaalik taad ugu wanaagsan ee ummaddu kugu jeceshahay ee magaranaysa qulubteeda baad ku hanatay waxa weeyaan dadka jilicda sanad hoosta u eegtay waana tii bulshada oo dhan ay laga waajibaad inagu haydayna wada saarnayd laakiin waad garatay dadaalka halka ka sii wad waxaanu jeclayn maanta inaanu gobolka Gabiley si balaadho kugu soo dhaweeyno laakiin soo waanid ku habsaamay waxaanu aad iyo aad maanta anagu halka taagano afkiga dhalinyarada gobolka Gabiley ku hadlaya inaad mar anaga si cad noogu timaado Gabiley ahaan oonadna dhaafaynin anaguna idinla joogayso waxaanu jecelnahay inaanu si fiican oo magaranaysa Gabiley aanu kala hadhin aanu ku soo dhaweeyno anagu waxaanu matalaynaa maanta gabagabadii Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo isaguna ka mahadnaqay soo dhaweyntaasi ballaaran ee warbaahinta madaxa bannaan ay ku qaabileen magaalada Gabiley ayaa yiri aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sidaad noo soo dhaweyseen ee sharafta leh aad iyo aad baad mahadsantihiin magaalada Gabiley iyo Hargeysa oo aad isugu dhow isla markiiba waxa weeye waan soo galnay dadku waa hurdeen waxa isla Gabiley acbaar baa la soo soconaya laakiin markiiba waan soo galnay saas awgeed ba ayaan muxuu ahaayay aan isu dhaqsaa idinku soo galnay Gabiley runtii waxa ay mudan tahay in aan joogo oo aan inta in ka badan aan joogo biidhnillah insha Allah waxa weeye waan ku soo noqon doonaa maalmo ayaan muxuu ahayd la joogi doonaa anoo doonaya inaan arko yani Gabiley iyo dadka reer Gabiley inaan la kulmo aan wada sheekaysano aan goobaha kala duwan ee Gabiley ay leedahay aan booqdo goobaha waxbarashada iyo goobaha kala duwan ee ku yaala magaalada Gabiley runtii booqashaduna Boorama maaha sida aad qaar ka mid ka dhawaajiseen waxa weeye waxaan soo baxnay Gabiley iyo Boorama si wada jiraan uga soo baxnay macna markaan tan ka tagno aan muxuu ahaay qadar la kulanno iyagaba laftoodana waxa weeye insha Allah saasaan ula kulmayna marka booqashadeedu maaha Boorama laakiin waxa weeye waa labada magaalaba ku socday Gabiley waxa weeye markii labaad aan soo gaaro markii ugu horeysay waxay ahayd 2017 bishii 11aad ayaa igu horeysay Gabiley markaas waxa weeye waxaan u nimi inaanu soo booqano qoyska muwaadin loo dhiibiyay dalka Djibouti Cabdilaahi Sheekh Cabdiraxmaan Ibrahim aanu la kulanno qoyskiisa iyo hooyadii Faadimo Ciise Fariid oo aanu u iftiimino qisadan tiina way dhacday waanu baahinay alxamdulillah arrinka maadaama aan xusay halkan waxaan doonayaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay arrinka muwaadinkan reer Gabiley ee Djibouti ku xidhan
waxaan uga mahad celinayaa runtii inuu arrinkaa ka hadlay oo u ballan qaaday in muwaadinkaa loo soo celin doono dhulkiisa waxa weeye xilligiisii lama dhiibin waxa weeye 2014 baa la dhiibay ciddii ka mas-uulka ahayd iyo dadkii ka mas-uulka ahayd waxa weeye waa dad macruuf oo la garanay laakiin tallaabadan uu qaaday runtii waan uga mahad celinaynaa waananu ku dhiiri gelinaynaa inuu fuliyo oo hooyada halkan nala taagan Faadumo Ciise Fariid inuu kaga farxiyo waan rajaynaynaa annaga iyo shacabkuba Muuse Biixi baan muxuu ahaa ka sii hadlayaa madaxweynaha Somaliland ayaa waxa weeye waxa la oran jiray maxaabiista oran jirtay oo cid kastaaba way hadashay ninku qalbi adka bay oran jireen cid kastaaba hadashay waxa weeye ninku muxuu ku sii deyn waayay maxaabiista markaan is wareysano la warku waan soo gaari jireen laakiin waxaan idin sheegayaa cid la fadhiisatay oo aniga iga socota ma jirin isaga cid la fadhiisatay madaxweynaha Somaliland arrinkayga ka socota oo la fadhiisatay ma jirin marnaba dadkii ugu horeeyay ee la fadhiistay waxay ahaayeen labada gudoomiye xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga waa kuwii ugu horeeyay hor fadhiistay ee arrinkayga kala hadlay kuwii ugu horeeyay arrinkayga kala hadlayna wuu igu soo daayay oo Ilaahay sabab uga dhigay marka cid may jirin runtii waxa weeye dadku waxay ka hadlayeen baraha bulshada iyo meelahaas ka hadlayeen laakiin cid hor fadhiisatay ma jirin waxa kaloo jira runtii xaqiiqatan waxa weeye qofka libintiisa waa la sheegaya waxa jira muxuu ahaay xabsiga sanadii 2 bilood baan ku jiray runtii waxa weeye dad dhibaataysan oo xanuunsanayo muddo dheer ku jiray yaani waxa weeye oo lagu dhiiran waayo soo deyntooda kiisas lagu dhiiran waayo soo deyntooda ayuu ku dhiiraday rag ka horeeyay ku dhiiran waayeen ayuu soo daayay marka maxaabiistu waxay odhan jireen arrimahan cidi kuma dhiiran isagaaba ku dhiiraday taasna waxa weeye waxaan ku dhiiri gelinaynaa isaga laftiisa maxaabiista kale ee muxuu ahaay ku jira xabsiga dhexe ee u baahan soo deynta xaqiiqatan waxa weeye waan ugu baaqaynaa ku boorinaynaa waan ku dhiiri gelinaynaa inuu muxuu ahaay soo daayo oo qaar xanuunsanaya jira qaar muxuu ahaay kiisaskooda u baahan in dib loo eega jira waxaan doonaynaa adduunyada in kooban baa la joogaya inaynu dhammaanteen muxuu ahaay cadaalad aynu ka shaqeyno markaan halkaa muxuu ahaay inta aan kaga imaado de waxa weeye maanta waxa weeye waa soo dhaweyntii waan idinka guddoonnay aniga iyo saaxiibo badan baa ila socda aad iyo aadna waad u mahadsantihiin sida diiran ee aad noo soo dhaweyseen badanaaba waxa weeye waxay isugu jiraan dadkana soo dhaweynaya rag iyo dumar ragganba aad igu hareeraysane waxa weeye dumarku iyagoo muxuu ahaanay odhan oo mid kastaaba doonaysa inay erey tidhaahdo ayaa waxa weeye muxuu ahay ragga muxuu ahay eriya waan idiin iman doonaa insha allah marka waxa waan idinka mahad celinaya xaqiiqatan waan idinka mahad celinaya inkastoo aan iyaro qadara la kulmay qaar ka mid ah waad mahadsantihiin hablaha reer Gabiley iyo reer Gabiley waxa weeye waad mahadsantihiin insha Allah biidnillahi karim gobolkiinu inuu yahay gobolka cagaaran waxa noo cadaan doontaa marka aanu tagno gobolka Sanaag ama waxaad noqonaysaan gobolka cagaaran ama gobolka oo aan tagi doono ama magacaasaan xagga ka soo oranayna waa idinka gobolka cagaaran ama magacaanu idinka qaadayna ka warama idinka qaadi maayo anigu laakiin waxaan doonaynaa inaan muxuu bal isbarbar dhigno gobolkan cagaaran la sheegayo iyo gobolka muxuu ahay Sanaag runtii waxa weeye magaaladan waa magaaladeedii magaala muxuu ahay cid gaar ah leedahay ma jirto magaala aan qariib ku ahay ma jiro dadkayga u maanayni waxa weeye waxaan la jeclaaday inaan dadkayga la kulmo marka saasaan muxuu ahay idinku imi waanaad mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr waxaan si gaar ugu mahad celinayaa intiinan maanta halkan timi oo matalaysa muxuu ahay reer Gabiley warbaahinta waad mahadsantihiin intaasi kadib Cabdimaalig waxa uu si kicitimay dhinaca galbeedka Somaliland gaar ahaan xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaana duleedka magaalada Boorama ku sii sugayay qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee Boorama iyo waliba qaar ka mid ah dhalinyarada gobolkaasi Awdal iyagoo halkaasina ku soo dhaweeyay isla mar ahaantaana ereyo soo dhaweyn ka jeediyay goobtaasi magaaladii aqoonta magaaladii xadaaradda runtii markaad hore u gasho aad arki doontaa ilaa 8 jancadood baa ku yaala dadka dhammaantood aqlabiyad waxay u badeen waa wax laga yaabaa inay shahaadooyinkooda wada masters yihiin laakiin qaar digriina badan yihiin laakiin adu ma jiro wax levelkiisu jaamacad ka hooseeyo yar yahay Cabdimaalig waxaan runtii leeyahay
kolley wax badan waad u soo samartay intaad xabsiga ku jirtay runtii waxaa kaloo aad iyo aad ugu farxay maalintii aad soo baxday maanta waxaan ku leenahay waan ku faraxsannahay maatikaaga qof kasta oo xaqudirira ama diida wixii dulmiya ama tacadiya shacab weynaha iyo ummadda islaamka oo dhan way jecel yihiin cabdimaalik xadhigaaga waa ka xumaayeen reer boorama aad baa habeenay dharaar looga hadlayay cabdimaalik waxaad joogtaa boorama halkii laga soo gelayay dadka inta badan waxay yidhahdaan waa magaaladii aqoonta xadaaradda nabadgelyada tanaasulka midnimada waxaananu maanta ku leeyahay ku soo dhawow magaaladii dhammaystiraysay bariga haddaad intii bariga soo heshay haddaad boorama haysana intii galbeedku waad haysaa waanu ka xumayn xadhigaagii waanu ka xumayn dhibaatadaadii aabba ilmihiisii laga qariyey waanu ka xumayn aabba gabadhiisii laga qariyey waanu ka xumayn cabdimaalik maanta kuma horrayso barnaamijka kaalmee kuwana boorama ay soo gaadhay soo dhoweynta cabdimaalik muuse coldoon waxaa qayb weyn gale oo ilaa xalay qabanqaabada ku jiray fanaanka weynaani macaan cabdiraxmaan xasan hilaac waxaan ku leenahay magaaladaadii ku soo dhowow cabdimaalik aniga 2 cisho iga soo horreeyey dabadii baan soo baxay oon ku faraxsannahay inaan labadeedo xor iba saak halkan aan ka hormarno waxaan u mahad celinaa shacbiyada reer Awd maaha halkan masabka lagu soo dhaweynaya masab dawladeed maaha caaqil maaha suldaan maaha madaxweyne maaha wasiir maaha wax uu soo doontayna ma jirto cabdimaalik wuxuu magaciisu uu caan ku noqdo dhammaangeeyga Soomaalidu caan ku noqday waxa weeyaan samafalka dadka jilicsan iyo u hadlida dadka codka aan lahayn tii simil gale oo sharaf leh oo karaamo leh saxafi samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon halkan ugu soo dhaweeyay intaasi kadib samafale wariye cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo ka mahadnaqay soo dhaweynta gobolka Awdal ayaa yiri reer boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal idinka ayaa matala waxa weeye qayb kamid ah tihiin cayina tihiin iyagu imanayna insha Allah biidin Ilaahi kariim wa maxamed xasan sheekh maxamed Jubba